السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحنا قانكي برودكشن waxaan ku soo dhawaataan barnaamij wareysi xasaasi ah la yeelan mid kamid ah abwaanada Soomaaliyeed kaas oo aan la buubuun maanta waxa garabkayga midig fadhiyo abwaan qoraa almuhandis in inta isku darsaday abwaani ku soo dhaw qaankii production adigoo magacaaga u sheegay dadweynaha ka daawanay waan ku dhawaay qaankii production magacayga waa Maxamed Xasan Balaag dalmardiikon ku magac dheer abwaan ma dhoofan wala dhaha abwaan ma dhoofe abwaan maanta waxaan rabnaa inaan wareysi kula yeelano taariikh nololeedkaagii halka aad ka soo bilowday diyaarinta qorida erayada iyo wiliba murtiyada aad qorto abwaan adigoo inoogu bilaabay kow halka aad ka soo bilowday taariikhda maanta aad ka taagantahay inaad wax dhifto waxaan ka soo bilaabay in maray qeyri ugu dhalatay oo wadanka Itoobiya soo gashay oo dadkan la laayay oo Itoobiya awood badan oo dadka u sheeganaysa iyadoo la soo dhaweynay idna muruqan ku joogo wadanka dhayso aan waxaan tiriyay oo xilliga fooriyooga ahayd madaafiicda dhacaysay mugdigan la galiyo manidan la mariyo maxaa muqdisho loo keeno maatada loo murjinaya Burundiga la keeniyo madmadow Uganda aad u moodamuunkii Itoobiya Mareykan mitilaysa maatadii dhamaanteed maxkamadaha waa ku laaysa inta oo idilkood yaad u madaxad leedahay soo saxiix xilligaas macnaha waxay ugu dhalatay ina khayro waxa wadanka si loo qardbaday iyo markaan arkay igu dhalatay kadibna waa daba kacay abwaan xilligaas ma noo cayimi kartaa taariikhda ama sanadka halku 2007 meelaas waagi abilaawaysi inaad soo tirada abwaan ma jirtaa erey asmeysay hadii ahaaleed suugaan hadii ahaaleed gabayo oo maanta magaalada ku jiro way badan yihiin gabay waxaan sameeyay oo hooyo oo looga sheekeynayo sida gudniinka fircooniga loo dabar gooyay waxaan jeclaystay hooyooyinka qaarkood aan guursan oo ilmahoodii shalay hooyada laba maadeen ninku way kirtaa ama inuu ka dhintay ama inuu furo hadduu ka dhintay ilmaheeda kursiinteeda intay ku jirtay waxay sameynayaan in ninka la aroosidii ilmahan kursiye hadduu furayna sidoo kale nimanka qaar waxa iska dhahayaan ilmaha hada adiga wadatid biilku ma siineen hada anaga haysanana anaga beelan xujo waayo hooyana ilmaheeda malaga reebi karo marka danta wuxuu kalife inay adeerna in u dhaweenin ilmaheeda korsato qofka walaalkeeda wax ku sii hayna walaalka doo maqlo in ay guursateen wuxuu sameeyaa gabadhii lacagtii ka reebaa marka danta wuxuu qasbay abartii inay cunugan koriso cunuga markuu weynaado marka waxa laga rabaa hooyadii shalay ku soo tiri dacbeeshay hooyo shalay ma guursan anaga soo korisay maanta guursan inoo dhaho ilmihii ma karaan waxay sameynayaan habartii way guursadeen maqla amanin la socotay way xanaaqayaan mana ku jirto marka gabay waxaan sameeyay hooyooyinka in guurka loo ogolaado abwaani gabay hooyo hadii mar la maqlo dadka dhamaan xaada istaagayso ma gartay waxaan jeclaan lahaa gabaygaas inuu tuurto gabaygaas wax yar oo qodob kamid ah inka taabaha in ka soo YouTube ugu jiro meeshan maanta insha Allah waxaan ugu talagalay meeshan soo booqday inaan gabay kale oo maxaa lahayd oo qaranka Soomaaliyeed aan kula hadlayo inaan ka deeyo marka gabaygaas waxaan kamid ahaa hooyan guri u gaday hooyan geel u gaday hooyan gaari u gaday bal intaba garateena bal maxaa leedinka waayay hooyan guurinay ama guurinayna war aabihiin oo gaboobay oo gaamuray inuu gabay yar guursadaaba oo guul iyo goowisiina hooyo maxaad ugu maadaa gabayga tudciiro ku jiro meeshaas ahaa marka waxaan rabaa insha Allah haduu Ilaahay idmo inaan meeshan dawladda qaranka Soomaaliyeed iyo wixii qof kasto mas'uul ah inaan meeshan tix ugu jeediyo haduu Ilaahay misaamaxo okay tixda aad jeedinayso maxay qusaysaa amaan miya waana miya guwaabin way dawladda inay mas'uuliin yihiin shacabkan mas'uuliin ka yihiin aan ku guwaabiha macnaha wax qabadkooda iyo meelaha duleelo aan wax ugu sheegayo in badan inoo bilaw bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan muslimiinta adduunka meel walba ka joogaan ee dadkayga Soomaaliyeed ana aadkaan u jeclahay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan tixdeeda hore u galo tixdan waxay u socotaa qaranka Soomaaliyeed ee qof kastoo mas'uul ah duu ganacsada yahay xataa qof kastoo guri degan gurigiisa mas'uul ka yahay qof kastoo mas'uul ah ay tixdan ula jeedaa waxayna u dhacaysaa sida tan xur inaad tahay hamoodin ruux kastoo xil sidow xur inaad tahay hamoodin xukuumadeeniyaay dawladeeniyaay mas'uuliinteeniyaay qarankeeniyow inta xilsidaay intaad xilsidaan xur ma ah naftiina xaglahay ka xiran tahay xanuunada maanta shacabka hayana xal ma loo helayo xag eeba mooyaan idinkuna xagiinii xal ma loo helayo haddaydan ummadda u kala xaqsoorin xalaal ugu adeegin xigtiya xageeyna xisaabtooda jiminin xal ma loo helayo xilhaayo ogsoonow xukun eeba keenay cidna ma xadin karayso xabaal xigaa xisaabe ogaada xukun dad ma xal yara xujooyin baa ku xeeran xaqsoorkaas u weyn
xaakinkeen ilaahay inta xil sidoo xakamal xaankooda ogaada waxba kama xumaadaan xadgudubkana ma ogola xaq kastaba adduunyada haddii lagu xaluushto xilligeeni hadduu idlaado xayaatadan ku faanno waa untii nagala xanyuubshee xoolaheennana waa kii nagala xabaale idinkoon isxumaynin dhexdiinnin isxasdeen xaaraantan xalaashanaynin xalay oo xurmeeya xushmeeya oo xureeya dadka iyo dalkiina idinkoon xadgudbaynin xilkan aad ku wada xoomaysaan xoola jaclaynta aad ugu xilinaysaan xadreynta aad u malaynaysaan haddaad xaqiiq mar eega laheedeen aakhire iyo xigeeda xabal iyo xisaabtankeeda naar iyo xanuunkeeda aad ay aad u xoojin laheedeen xilka iyo xakamayntiisa anigana xaggeygii abwaan ahaanshahaygaan waxa aan la xiiqayo aan la xabeebsanayo xididahaygaan xiska banaanka igu soo xoomayaan waxa ay ka walax tahay Soomaaliya xalkeedii xaraf inaan ka sheego xaaleedeedii hoosneedna waxa aan ku soo xiraya xasbunallahu wa ni'mal wakiil assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh een abana aad amaansantahay yaana ka tayin garabkayga bidix waxa fadhiso Rihaana oo ayadana jecel inay ku soo biirto waayaa fanka Rihaana ku soo dhaw janaalka Khankii production asxaabta ku daawanayso waxa ugu tala gashaan insha Allah اوكي عاد سرو قاتل هنا ما انت سوق لنا عملنا ما شاء الله سوق ان اوكي ابان كم كرم كو سو دبي ان dadka waxa ugu tala gashay maanta hees eedo hees اوكي waa hees aad wadato miyaa hees hore loo qaaday hees hore loo qaaday اوكي ku siiso eedan la yaabe xankeedu darana islaanimada gudnimo ma ilaalinaysi ishe kugu gubtayo waqtiga la dirta uma saarto araxde ari waxay tiraahda alla qadkan maxaa dhigay agteyda wiila soo farjiro hooyadiisa waaya hidda kuma daryeeshin habba kuma ogaadee walbay kula dhacdaa in badan Rihaana heesta eedo oo hees hore loo qaaday sida hore inoo sheegtaba Rihaana maanta waa fursad weyn waayo aad waxa jeceshaan ugu soo birto waayaa fanka maanta waxa halkaan kula fadhiyo mid kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ahna maanta abwaan awoodo in wax halaal waxa ugu baahato oo dhanka fanka kugu dhiirigeliyo abwaanka maxaa dhihi lahayd maanta maadaama ay jaanis tahay ما شاء الله horta abbaanka isma ogeyn oo ilaahay miskiin keenay waxaan isku qornaan isku imaanay in badan soo waxaan jeclaalahay abbaanka inuu garab qabto oo fanka heerkan ka jeclahay ay gaarsiiyo oo ku gaarsiiyo ayaa abbaanka waa maqlay saarihan waa maqlay walaashii waxay leedahay wax alaal wixii aniga dhankii ka soo maro waa ku garab qabanaya daryaal macaade aato iyo waxay dalbanaysa hadii aato in badan insha Allah taala waa u jooga waqti kasto way xiriir kartaa okay maadaama fanaanka uu joogo waxa jeclaystay in aan weydiiyo Rihaana ayadoo jecel inay ku soo biirto fanka hees noocee ah aad jeclaan lahayd inaan noqoto heesta ugu horeysa ugu soo biirto fanka daadis jecel naceeb inta aad wax alaalo hees noocee jeclaan lahayd inaan fanka ugu soo biirto wallahi su'aal isweydiin mudan waxaan jeclaan lahaa ahaan shakhsiyan hees misana qofka bini'aadamku yaa wax qof wal bini'aadam ah hamiyo maxaa geliyo wax dhibaato haday noqoto balbaleen family haday noqoto an ahaan waxaan jeclaan lahaa hees ka turjumaysa balbaleenka gabar guur soo martay misana rafaad iyo waxa soo aragtay heestay qaali lahayd maanta ee ku alay ku tusay umada Soomaaliyeed macnaha hadii aad si kale u dhaw heesta aragto waa hees adi calaacal oo tusiyaan maxaa gabdhaha macnaha ilmaha lagu furo kale ina xoogaa sareer marka joogto nin marka cidiisa la joogto qaabka ku noolaa hadii dumaashin noqdo hadii staa noqoto hadii dumaashin hadii saygaaga noqdo naftirkiisa okay waa tahay waxa daawadayaal intaas inoo ka wareysigeeni yaraa aan la yeelanayna mid kamid ah abwaanada Muqdisho iyo mid kamid ah gabdhaha jecel inay ku soo biraan fanka magaalada Muqdisho janaalka aad ka daawanaysiin waa Khankii production waa tan iyo fiideo xiga oo xiiso badan